anigana baabuurka la igala degay difeer iyo haraantiya la igula daldalo la igala degay sidiyaana aan baabuurka la iga qaatay ilaa nin la abduubta baabuurka laga qaato la xoogaya aan ahay nimankaasna qof ay axsaan u sameynaa mala waa la ogyahay meel kasto galabnyadu kamid aan baabuurkaas meel u qaatay oo meel oo beera aan ku qaatay oo ku aaday haddaan kuu faahfaahiyaa baabuurka waxaan u qaatay annana ma aan samayn inaan magaaladii kusoo noqdo oo meeshii dacwo iyo maxkamadii iyo adduunye amar mara ma aanan samayn waddankana culaysyo badanaa iska jiro dad badanaa kamid yihiin dhalinyarada Buulamareere oo raggii Abuukur'aami iyo yarkii injineerka kamid yahay Bakay Media Production aad iyo aad ugu dhawaay anigoo ah magacayga Usmaan Ali Maxamed oo loo yaqaan Usmaan Ayo waxaan meeshaan inaan uga hadla rabaa taariikh dhacda hadda ka hor ka dhacday magaalada Buulamareer oo aniga qoysaysay ayaa waxaan inaan u faahfaahiyaa Bakay Production iyo dhacdaba arrin ugu qabsatay ani waxaan ahay nin ku dhashay ku barbaaray magaalada Buulamareer dhacdadaas waxay ka dhacday Buulamareer galabyada kamid ah oo baabuur iska wato waa nimankii argagixisada ayaa meel iga soo baxay waxayna iga qaateen baabuurkii waxayna ku weerareen magaalada Buulamareer wallahi ani baabuurkii markay iga qaateen wax ay ku sameeyeen ma aqaano in la afduubtay baabuur laga degay oo la watay baabuurkii la watay asalan afduuban ma aha mar dambe baa maqlay waxay ku sameeyeen laakiin intii ooshaas ay socotay wax lagu sameeyay ma aqaano telefoonadii la iga qaatay iyo dhacdadaas ay ugu dhacday taariikhdu markay ahayd 2023 bishii 9 maalin Talaado ah niyo waxaan ahaa gudoomiye gaadiid oo meeshaan ahaa gaadiidka u shaqeyn jiray marka Buulamareer gaadiidleyda u shaqeyn jiray meeshaas aan liiska qori jiray dhacdadii qaraabkayga saas u ahaa in masaakiin oo xogsato gaadiidkaas qorqoro ka qaraabtaan ahaa galabyadu kamid aan baabuurkaas meel u qaatay oo meel oo beera aan ku qaatay oo ku aaday haddaan kuu faahfaahiyaa baabuurka waxaan u qaatay ari aan leeyahay baadi oo meelahaas ku dhalalay 2 neef camala ayar ila dhashay oo dhaynay 2 neef ay dhashay mana qaadi kare Soodoon markaan baabuurka qaatay oo arigii aan doonay 2 neef aan doonay intaan arigii meesha u joogo gaarin dhaxdana iga soo booday baabuurka la iga afduubtay saasana la iga qaatay anigana baabuurka la igala degay difeer iyo haraantiya la igula daldalo la igala degay sidiyaana aan baabuurka la iga qaatay baabuurkiina meel la aaday ilaa hadda maan ogeen mar dambe umayna magaalada lagu aado wax lagu soo diray la ii sheegay baabuurkii aniga saa markii la iga qaatay ilaa hadda meel uu jira ma aqaano ana nimanku waa afduubteen dhankaas ay wateen 14 bari ka bacdi ay ilaahay gacantooda iga soo bixiyay niyo dhacdadaas abuula igu dhacday anigoo ah Usmaan Ayo oo magaalada caanka la yaqaano saasay u jiraan bari iyo waa dhacdada magaalada aan ka maqlay maray 14 bari ka soo wareegtay inay nimankii meesha nimankii arxalayaasha meesha ay ku weerareen alla ii sheegay oo niman control joogo ay ninka dileen sida la ii sheegay warbixinta aan ku maqlay gabar aniga hataa oo idilay dhashay ayadana meesha deganay ayadana ayadii oo control agteeda deganay ayadana ku ay xabadihii ku dhimatay isweydaarsi iyo nimanka ma dirimiya ma aqaano niyo arintaas inay ku dhacday ii sheegay niyo na 14 bil ka bacdi aan markaas maqlay ilaa nin la abduubta baabuurka laga qaato la xoogaya aan ahay nimankaasna qof ay axsaan u sameynaa mala waa la ogyahay meel kasto arintaas ay ugu dhacday marka in magaalada wax lagu dilay wiil oo ciidanka kamid ah lagu dilay alla ii sheegay gabadhaas aniga dhalatay eedaday dhashay ku dhimatay alla ii sheegay gabadha iyada dhashay oo yarnaan ku dhaawacantay arrinkaas saas u ahaa wallahi niyo gabadha eedaday baa dhashay waxa iga aamin kartaa dama jiro dibadkeedna nimankan waa falki ugu horeeyna ma aha 24 saac nimankan ay wargagixisada ay dibkaas dadka ku sameeyaan wax la yaab leh ma aha 24 saac ay magaalada wax walba ku soo qabtaan oo ku soo weeraraan wax alwixii oo markaas oo qof min aadan ay ku sameeyaan kana ku sameeyaan anina hadda gabadhaas walaashay meesha waa ku baxday ilaahayna u naxariisto jannatul firdaws ilaahay ka waraabiyaan leeyahay banugti iyada dhashiyeen kulli isbitaal umbaaliga waa u fiican tahay eelkiina waa u la xariiray marka qadarkana meesha ay leedahay wallahi niyo marka waa qadar ilaahay oo meesha ku dhacay waa moogi intaasoo sanaan magaalada joogay wax la igu meesha gafibati kama aan geysan 32 sano Buulamareer ku noolahay hal maalin ayo lama dhihin qadartii iyo gaarigaas aniga waa darawal waa ahay 2012 aan darawal noqday
qof baawur waa iska qaadan karaa nin walaalkay oo Cabdicasiis la dhahan baawurkaas ka qaatay qof gaadiid u qayna maanta baawurka meeshuu u qaadan karaa oo walaalaha way siiyaan nin waa u sheegay waxaan dhahay arigaas laba neef meeshaas ku dhashin yarkii la dhashaan isoo wacayo arigan waa u badnaay marka ariga ma kala qaadi kareen niyo bal waa isoo doontid niyo mooti wax ma raasitidaan dhahay markaasoo dhan niyo mooti wax ma leh sidii aan baawurka Cabdicasiis walaalkay ugu qaatay saasaan aan baawurka ku qaatay oo arrintaas ugu qabsatay 2010 labadana baawurwado aan galay qof gaadiidka oo shaqeeyana waa ahaayo baawur hadda maanta ugu tagano qof idiiday ma leh qof walba ileen waa nin oo baawurta u shaqeeyaan ahay saasayna wax u jiraan niyo ani magaalada waxaa la iiga yaqaanay in magaalada ku dhasho ku barbaaro wax ku bartay baan ahaa isboortigana waan guddi oo dhexdhexaadin baan ka ahaa gudoomiye ku-xigeen isboorti mar waan noqday koox aan madax u ahay oo jirta New Star lahan way jirtay adin in magaaladaas ku bashay oo ku barbaaray isboortiga mugbiyan ka qaatay baan ahaa ilaa reer gobol ilaa meel kasto shaqadaydan waxay ahayd boosaajadaas bool mareen aan ka shaqeeyo arrinkaasna niyo dhacdada saasi ku dhacday waa kaas niyo magaalada markii qisadaas ka dhacday dibkaas uu ka dhacay 14 baa nimankaas ay haysteen kabacdi odayaal qaraabadeydii wax baa isoo baadiga goobay hadii kabacdi nimankii inay haastaan iska cadaatay nimankii kabacdi waa liiga fujiyay oo baadishida wata kabacdi waa liiga fujiyay ilaahay baan ku mahadsan oo ilaahay baa gacantooda iga soo bixiyay niyo kabacdina magaaladii ani waa ka cabsaday oo cabsi xaggeeda ay gashay kabacdina waxaan iska aaday meel xamar waxaan joogay adii bil camal niyo kabacdina waxaan iska soo galay safar Kenya maadaama wadankii marxaladiis meel xun ay marayso oo annagana aan baawurayna oo laba jaanib aan ku dhex shaqaysano marka waxaan go'aansaday inaan iskaga tago wadankaana iskaga tago iska baxo go'aankaas anaa qaatay maadaama oo wadankii oo xaalkiisa uu bariga dhex marayo oo laba jaanib dhexdooda lagu dhex shaqaynayo laba jaanib ay iska soo horjeedo oo lagu dhex shaqaynayo kana uu saas ku leeyahay kana uu saas ku leeyahay meel aad meel kale kala ka siinin dhibaato badan oo cusriyo badan dhibaato badan amar aad uu la kulmay markaniyo waa iska dhib wadanka iska dhibata markaas waxaan go'aansaday inaan iska soo baxo soo aado dhankaas iyo Kenya iyo Ethiopia wallahi niyo horto wixii jir ilaahay oo macna adduunyada ilaahay baa wax walba dhaalacan karo qof bini aadam wax u waan kar male magaaladaydan waa war xun dadkii war xun waa gal karaa isku fikir ma wada noqon karaa aniga hadda ma aaminsani magaalada wax xun laga aaminsan yahay qadartaasna qadar ilaahay soo qoriyo meesheeda taale anana ma aan sameyn inaan magaalada ku soo noqdo oo meeshii dacwo iyo maxkamadda iyo adduunyo amar mara ma aan sameyn wadankan culeysyo badan iska jiro nimankaas meeshii joogaan ani waa ka cabsaday xaqooda ma aanan soo aadin arrintaas aniyo saaseen wax u jiraan marka kabacdi waa iska gaabsaday inaan wadanka iskaga baxo aan ku aansaday wallahi niyo waxaan dheelaa kulli hadda waxa waaye wadanka markaan ka soo baxday dhacday gadaashii ta dhibaato badan baa dhacday rag badan baa leeday oo naqaano oo dad badan ay kamid yihiin dhalinyarada bool mareere oo ragii Abu Qur'aami iyo yarkii injineerka ay kamid yihiin alxamdulillah aniyo waxa waaye wadanka marxaladiis meel xun ay maraysaa marka dhalinyaradii bilka joogtay waxaan dheelaa kulli nin walba ilaahay amaansado wax kala aan duco aan ahayn oo awood ma laha wallahi wax walbana waa qadar alay ku imaadaan ayagina wadankoodii ku dhasheen waa meel ka aadan kala ma yaqaanaan qadarta ilaahay nimeesheeda ay leedahay marka waxaan dheelaa kulli qof walba muslim meeshaas joogo ilaahay uu amaansado waa meesha meel xun iska noqotay qof kastoo muslim oo bool marar ku nool waxaan dheelaa ilaahay amaansado intaas ma dheelaa wax kale oo hadda maanta aan dhahayo ma insha Allah